ma ogtahay in Maraykanku uu 11 milyan oo tan oo bambooyin ah uu tuuray 80kii sano ee ugu dambeeyay diyaarada xambaarsan qumbulada aad u culculus ayuu ku rusheeyay oo roobka uu uga dhigay waa wadankee ayaad isleedahay dalka ugu badan ee bambooyinka lagu garaacay ka waran haddii aan ku idhaahdo Iiraan kama mid aha 10ka wadan ee bambooyinka ugu badan lagu casumay yaaba isgaaray waxa uu dhigay waxa uu soo wadaa ka daran Soomaalida qofka dhibka badan qaasatan ragga waxa ay ula bixi jireen culujoog anigaaba garanaya reero la oran jiray ilmo culujoog halkan waxaanu idinku soo gudbinaynaa dalalka ay ku dhaceen bambooyinka ugu badan ee ay diyaaraduhu xambaaraan inta aynaanse u galin ma ogtahay in Maraykanku uu soo qabtay oo uu gacanta uu ku soo dhigay 5 madaxweyne oo fadhiya xafiisyadoodii oo talinaya teer iyo sanadkii 1901 dad baa ku baraarugay Venezuela waa saacado uu weligii u lahaa Maraykanku waxa uu jeegada uu ku soo dhigay madaxweynihii Philippine Emilio Aguinaldo sanadku markuu ahaa 1901 sabankaasi waxaa socday dagaal u dhaxeeya Philippine iyo Maraykanka madaxweynaha la soo xiray ayaa lagu tuhunsanaa garabsiinta dhaqdhaqaaqyo American diid ah madaxweynihii Panama Manuel Noriega ayuu lalansaday gugii 1989 iyadoo aan hal xabo qush laga siin gurigiisana laga qaatay inta helicopter lagu xambaartay waxa uu ku eedeysnaa kaligii talis ka ganacsiga daroogada iyo wax isdabamarin gaar ahaanna dhinaca maaliyadda waxa uu ahaa nin xukunka ku raagay isla markaana dalka oo dhan isla haysiiyey inkastoo cidda qabanaysa ee bedelaysa su'aali ka taagan tahay waaba haddii maamulkiisa la jeclaysan waaye madaxweynihii hore ee Ciraaq Saddam Hussein ayuu soo qabtay isaga oo meel god ah ku dhuumaalaysanaya sanadkii 2003 waxa loogu dawgalay in uu haystay hubka sida baahsan wax u gumaada kaasi oo goor dambe huf iyo been noqday kuwa kale waxa uu uga duwanaa Saddam isagu waa dagaalamay intii tabartiisa ah goortii dalka oo dhan gacanta lagu dhigay ayaa meel cidla ah laga helay isagoo difaac la'aan ah sidoo kale sanadkii 2004 madaxweynihii Haiti Jean Bertrand Aristide ayuu soo qabtay gurigiisa ayaa waxa ugu daatay niman cadcad oo Haiti ay ku sheegtay ciidamo Maraykan ah xilligaasi oday Bush ayaa ka arriminaya dalka madaxweyne Jean Bertrand Aristide waxa uu sheegay in uu diyaarad saarnaa muddo 20 saacadood ah isagoo aan garanayn halka uu u socdo ee loo wado ugu dambeyn waxa laga dejiyay dalka bartamaha Afrika ku yaala ee Central African Republic arrinka oo dad badan ka yaabiyay ma jirin wax xiriirinaya Haiti iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe aan ka ahayn in ay afka Faransiiska wadaagaan xarigiisa waxa loo cuskaday in uu dalkii Haiti qalalaase amni geliyay sharcinimada xariga iyo soo qabashada cidna isma weydiin lama canaanta caanihii daadiyay goortii la weydiiyey Maraykanka sababta uu u xiray mas'uulka iyo cidda u xil saartay waxa uu ku gaabsaday ninka isaga iscasilay laakiin Jean Bertrand Aristide oo la waraystay waxa uu sheegay in niman cadaan ah oo sheeganaya ciidamo Amerikaan ah ay waraaq ay u dhiibeen oo ay yiraahdeen hadda qor iscasilaadaada kadibna sidaasi uu ku qoray isagoo aan raalli ka ahayn ka gadaalna loogu daray in diyaarad dalka lagaga safriyo isagoo aan codsan isla markaana ogeyn halka uu u socdo amaba loo wado nin baa laga sheegay meydkee u dambeeyey saamid kale yiri ka la sii sido madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro ayaa hadda waxa uu ku xiran yahay dalka Maraykanka soo qabasho aad u fudud ayay ahayd kadib markii aqalkiisa ku dhex yaala madaxtooyada loogu dhacay isla sanadkan 2026 waliba dad baa qaba in weerarkii Venezuela iyo kan hadda ee Iiraan ay xiriir ay leeyihiin labada dalba waxa ku jira kaydadka saliidda ee ugu badan caalamka Venezuela ayaa Maraykanku u diyaarsaday baahibeelka dhinaca tamarta inta Iiraan shaqadeedu ay socoto waa aragtay ay dad badani ay qabaan maxaa yeelay Iiraan oo hoobata waa Shiinaha oo dhulka galay taasina waa istiraatiijiyad weyn oo ay Amerika ay rumaysan tahay Venezuela waxa laga ilaalinayaa Shiinaha oo ay barihii dambe ay isku wanaagsanayeen iska fahano maalmahan waxa socda heshiisyo dhinaca saliidda ah oo u dhaxeeya Venezuela iyo Maraykanka aynu ku soo noqono halkii aynu u soconay ee bambooyinka lagu burburinayo dalalka kale 10ka dal ee safka hore ka galay wadamadii la duqeeyay oo dhan waxa ay kala yihiin kow Serbia Maraykanku waxa uu ku weeraray bambaanooyin culayskoodu u dhamaan 2,000 oo tan labo Libya waxa uu ku dhuftay 10,000 oo tan qumbulada u dhigma saddex Syria waxa lagu garaacay 15,000 oo tan oo bambooyin ah intii uu halkaasi uu dagaalku ka socday sababta loogu dawgalay waxa lagu sheegay xoreynta shacabka afar Afghanistan waxa lagu dhuftay 100,000 oo tan oo bambaana ah intii uu Maraykanku halkaasi uu joogay ay dagaaladu ay socdeen gaar ahaanna wixii ka dambeeyay 11 September 2001 magaca loo saariyay waxa uu ahaa argagixiso la dirir 5 Ciraaq waxa uu Maraykanku ku dhuftay culays dhan 110,000 oo tan oo qumbuladood
6 waqooyiga kuuriya waxaa lagu tuuray bambaanooyin uu culayskooda u dhammaa 635,000 oo tan muddo 3 sano gudahooda. 7 dalkii la oran jiray waqooyiga Vietnam ee uu hirgelintiisa Maraykanku uu ku hungoobay waxaa lagu dhuftay bambaanooyin culayskooda lagu sheegay 1 milyan oo tan. 8 Cambodia waxa uu Maraykanku uu ku daandaamiyey 2,500,000 oo tan oo bambooyin ahaa. 9 dalkii Laos oo hirgeli waayey ee la doonayay in Vietnam laga jaro isna waxaa lagu dhuftay 3 milyan oo tan oo qumbulada ah dhinaca hawada lagaga soo tuuray. 10 isla Vietnam ta weyn Maraykanku waxa uu ku ganay bambooyin miisaankooda lagu qiyaasay 4 milyan oo tan. magacyada lagu marmarsiyooday si intaasi oo masiibo ah loo geysto waxay u badnaayeen dimuqraadiyad, xorriyad iyo madax bannaani amaba dib u xoreyn. Maraykanka hadda leh Iiraan ayaan ka hor istaagaynaa hubka nukliyeerka ah waa waddanka kali ah oo horay ugu adeegsaday nukliyeer magaalooyin la degan yahay si aan kala sooc lahaynna shacabka u dhexdhigay. Hiroshima iyo Nagasaki ayay ahaayeen magaalooyinkii lagu baabi'iyey nukliyeer iyadoo si nabad ah loo degan yahay dalka Japan. tani waxa ay ka dhigan tahay in isla Maraykanka leh dunida ayaan khatar ka hor jooga inuu isagu yahay khatartii. ninka qalbi caruurka ah ee hadda haystana isagoo xisaabtaba kuma jiro oo waa ka sii xag jira. bixisaba waa qisada ku dambayse hadda Maraykankii ayaa Shiinaha iyo Ruushka ku leh shidaal iga gata kadib markii uu dab suray gobolkii laga soo saari jiray ee bariga dhexe. waxaa aad u weeqmay sharcigii caalamiga ahaa ee ay dunidu ay ku kala badbaadi jirtay iyadoo aan maanta waxba laga weydiin hay-addii bari laga hebaysan jiray ee qaramada midoobay.